Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada janalka Baro ICT IT. Waa tii casharada inoo socdeen. Casharka maanta aan qaadan doono wuxuu noqon doonaa domain control. Sidee loo sameeyaa domainka ayaan qaadan doonaa si toos aan u galno practically. Sidaad ujeedaan waxaa inoo kacsan server Windows serverka server managerka ayaa inoo kacsan. Stepka ugu horeeya aan qaadi doono wuxuu noqon doonaa manage ayaa tagaysaa click manage. Kadibna waxaad ku dhufan doontaa add roles and features. Kadib next. Kadibna next. Kadibna sidoo kale next. Halkan waxaad ka dooran doontaa active director domain services ayaad ku dhufan doontaa. Add features ayaa leedahay halkaas. Kadibna waxaad dooran doontaa DHCP asayna u baahannahay DHCP service. Sidoo kale DNS ka u baahannahay. Dooranina next. Next. Sidoo kale next. Sidoo kale next. Next. Waad ujeedaan active director ayuu noo sameyn doonaa. DHCP server ayuu noo sameyn doonaa. DNS ayuu noo sameyn doonaa. Group policy management ayuu noo sameyn doonaa. Remote server administrative tools ayuu nagu dari doonaa. Waxyaalo badan ayaa ayuu inoo sameyn doonaa oo aan u baahan in domainka aan ku sameyno. Install ayaan leenahay marka ku shubaya halkaas ayaa buuxsami doonto kadibna domainkeena ayaan sameyn doonaa. Weli wuu socdaa. Sidaad ujeedaan server hore ayuu haystaa abdisom.local laakiin waxaan sameyn doonaa mid kale. Marka cancel ayaa dhihi doonaa. Kadibna waxaan tegi doonaa halkaas. Remote-kan serverka ayaan click ku dhihin doonaa. Kadibna waxaan halkaas add new forest aan teginaa. Kadibna barasho.local ayaan sameyn doonaa. Next. Okay, halkan passwordka uu aad ku sameyn doonto inaad isku mid ayaa ka dhigi kartaa mid kale. Laakiin muhiimaddu waxaa waaye password inaad haddii loo baahdo in la soo celiyo passwordkaas in lagu soo celiyo macnaha haddii wax kaa khaldamaan. Marka passwordka ayaan ku qori doonaa. badanaan wuxuu rabaa password iskugu jira xarfo iyo numberska iyo xarfaha at iyo minus ama wax adiga inaad ku darto calaamad oo dollar sign iyo waxyaalo oo macna isku jiro inaad ka dhigto. Tusaale ahaan waa video kale ila socdaa marka ayaan halkan ku qori doonaa. Halkan ayaan maraynay kan ugu horeeyo. Waa tii aan dhahnay passwordka inuu numberska iyo xarfo iyo
inuu ka kooban yahay strong password ayuu u baahan yahay markasta inta badan. Next ayaan dhihi doonaa, kadibna wuxuu samayn doonaa DNS-kii wixii uu samaynayaa iyo domainkii waynu soconaya muddaan sugayna wax yar, waqti yar oo qaadanaya. Calaamadan waa ujeedaan siday u socoto, macnaha shaqo ayuu wadaa, waa ujeedaan. wax yar ayaan sugi doonaa, kadibna halkan waxaan noo soo dhigi doonaa domainkii aan samaynay. Domain namekii waa kana barasho, kadibna halkaas ayaa next ayaa dhihi doonaa. sidoo kale maaragtay shaqo bilaabi doonaa uu samayn doonaa. sidaa ujeedaan failska meesha uu noogu shubi lahaa ayuu soo saaray, kadibna next ayaan leenahay. meeshan waxaan si toos aan u qaadan doonaa, maaragtay waxaan ka bedelayno. Next ayaan dooran doonaa waxyaalaha noogu shubi doona. ujeedaan shaqo wadaa. markuu noo sameeyo wuxuu samayn doonaa server one camal uu siinaya, kadibna barasho dot local maaragtay ayuu siin doonaa. install ayaan leenahay meeshan. hadda waa step ugu dambeeyay installkan uu nagu shubaya, kadibna maaragtay restart ayuu isku diraya computerkii macna serverka, kadibna serverka kadib domainka waxbarasho barasho ayaa kusoo kici doonaa, kadibna administratorka ayaan geli doonaa, kadibna maaragtay si toos ayaad domainkii u abuurtay oo maaragtay aad dhamaystirtay. sidaas ayaa loo sameeyaa domainka. waa ujeedaan waa meesha ugu dambeysa ayuu marayaa, kadibna maaragtay restart ayuu isku diri doonaa. waxaan rajeynayaa inaad fahantay steps-ka maaragtay uu marayo, qaabka loo sameeyo domain control ama domain name-ka oo maaragtay tusaale ahaan shirkad magaceeda hormuud maaragtay aad maaragtay domain local camal maaragtay telsom maaragtay shirkad kasta macnaha oo ayaa magaca lagu samayn karaa, kadibna domainka ayaa si toos ayuu u shaqayn doonaa oo maaragtay maxaa yeelay domainka waxaan ka sameynaynaa wax kasta oo maaragtay serverka uu rabo. saas daraadeed maaragtay domain nameka domain magaca domainka waa muhiim. hadda waad ujeedaan restart ayuu isku sameeyey, computerka si toos ayuu u damayaa. masha Allah waa ujeedaan maaragtay barasho oo maaragtay domainkii aan sameynay ayaa kuu muuqdo, maaragtay waa inoo samaysmay restart markuu isku diray domainka waa inoo samaysmay. marka passwordka ayaan gelin doonaa. waa tii aan dhahay passwordka waa inuu maaragtay strong password yahay oo xaraf iyo numberska ay isku jiraan, hadii kale ma aqbalayo. enter ayaan leenahay passwordka. hadda uu saxsan yahay. waa kaa hadda maaragtay
domainkan noo samaysmay meesha ka ogaan kartana waxaad tegaysaa local serverka ayaad ka ogaanaysaa in domainkaaga uu samaysan yahay. Already waa soo ogaatay, waxaa kusoo ogaatay markaad soo galaysa, laakiin haddana intaan ayaan kasii fiirin doonaa. Local serverka ayaan tegaynaa, barasho.local waa ujeedaa waa noo samaysan yahay marka domain controlkeena. Haddaad tools ka tagto waxyaalo badan ayaa kusoo darsamay. Active Directory ayaa kusoo darsamay, DHCP ga kusoo darsamay, DNS waxyaalo maaragtay intaan soo dooranay kusoo darsamay. Tools wixii dhan waa soo inta aad u baahneed oo maaragtay domainka u baahan yahay ayaan soo dooranay wataa. Marka casharkeeni maanta inuu halkaas inoogu yahay aan ku baranay sida loo sameeyo domain name-ka ama domain localka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dabcan share gareey, subscribe saar, la wadaag ardayda kale. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.